إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا سيدركها. بسم الله، الحمد لله، ثناء لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalayaal alxamdulilah rabbi alcaalamiin. ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iska leh. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa acmaasha khayriga inuu naga aqbalo. alxamdulilah, walaalo fara badan oo iga soo codsaday inaan sheekha kelmad kooban oo dardaaran ah inooga soo qabto. ilaahay fadligii sheekhii fursad baan u helnay, isaga oo xaramkii maka jooga. acmaasha inuu ilaahay ka aqbalo sheekha u duceeya, muraadkiisaoo khayr inuu alla siiyo, iyo inuu ilaahay jannatulfirdowso ku arsaaqo sidaa uu khayrka inoogu sheegayo. إن شاء الله شيخين وكلمة دردارنا يدعو بكدقي سنين إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إلهي بانكم هذين مالمهم بركيسا إن سوق قارسيي إنكو عافماد يا النبض هاينا dad badan oo ehelada xanuunsan oo jiraan iyakana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu bisha Ramadaan uu caafimaad sariica uu siiyo. waxaan naftayda iyo lafaha walaalahayba kula dardaarmayaa inaan ilaahay caza wajal aan ka baqno. waa maqsuudka dhan ee soonka looga dan leeyahay. lacallakum tattaquun waa kii ilaahay lahaa kutiba calaykum asiyaam ilaa aakhirkeeda. lacallakum tattaquun yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum alladii khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقصود كدن عبادة لو واجبي هذا صلاتها هذا صونتها هذا صدقتها هذا حجتها غاية لو قدن لا يحي ومحي وأنا إلهي كبغنا دتك إلهي كبغنا أدونك دوش هذا وحي كنا نرول في عن بيليهن آخرنا نرول في عن وجنة إلهي رديه سيموتي سنيا مركا طبعا كان ضمبه waliba maalmihii u dambeysaan ku jirnaaye ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu bisha barakadeeda iyo khatamkeega iyo laylatul qadriga ilaahay inuu waafajiyo. waa habeen khayr badan oo ilaahay uu yiri laylatul qadri khayru min alf shahr. lama oran macna kun bilood bay u dhigantaa maaha, kun bilood bay ka khayr badan tahay waliba. waa qabuuliyad ilaahay ku siiyo. dad badan baa mooday laylatul qadriga wax ka maqnaayo la helo, lacag la helo, gabadh wanaagsan oo la helo, shaqo fiican oo la helo, dhoof la helo. may waa qabuuliyad. camal habeenka aad qabatay oo laga aqbalo oo ajar intaa leeg ilaahay ku qoro weeyaan. marka ilaahay hayna waafajiyo. waan dadaalaynaa markaas quraanka akhriskiisaan badinaynaa. ducadii nabigeenu sallallahu alayhi wasallam oo Aisha u sheegay ay tiri haddii laylatul qadarka ilaahay waafajiyo maxaan ilaahay weydiistaayo maxaan ku alla baryaa. وكن نبي لها وحاتر هذا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عفو إلهي عز وجل أسمادي سوحا كمل العفو. عفسك يا مارتاني عفو يا غفور وحا حال دار بلا عفو يا حال دار. غفورك ودافع لقى يابا انتو دنبك كدافو قفكن وتكو قفتي انه هذا نقفك علوش وحكوكو سيحي. laakiin cafisku waxay ka dhigan tahay culimadu yiraahdeen waa dambiga qofka aad ka gashay, gafka aad ka gashay intuu ka dhaafo waliba uurkan aan waxba kugu qaban ba. ilaahay waa cafuw markaas. cidda khalqigiisa iska cafisana ilaahay waa jecel yahay. ilaahay waa ghafuur. cidda sifada ku sifowday adoomaha dhibka iyo gafka u geystaan iska dhaaftana ilaahay waa jecel yahay. ilaahay waa xaliim, waa dulqaad badan oo dulqaadkiisana adduunka ku dul joognaa. cidda maaragtaan adoomaha dhibka ka soo gaadha iska dulqaadatana ilaahay waa jecel yahay. ilaahay waa kariim, waa deeqsi. waxaa khalaa'iq adduunyada joogto oo dhan baahidooda isaga daboolaya ku aanan weydiisan baahidooda daboolaa. cidda sifada ku sifowda ee wixii ilaahay uu nicmad uu siiyay iyaka dhaafsan khalqiga ilaahay wax ku tarayana ilaahay waa jecel yahay. marka sifaadkaas ilaahay nagula tacaamulayaa. insha Allah cafiskan ilaahay ha weydiisano, aanan toobad keenno. nolosheenana maaragtaan bisha Ramadaan saameyn ha ku reebto oo waxa weeye noloshaasi waa madrasad ku soo martay. madrasadda qof walba ka faa'iideyso oo waxaad ka faa'iideysataa ha noqoto maaragtaan waa taqwad. laba soon waa soon yar iyo soon weyn.
bisha rabadaan oo maalinkeyga baadkee biyaha laga soomay oo ooridaada laga soomo waa soonkii yaraa laakiin soonka weyn waa maxay waa noloshaada oo dhan ood wixii muxaramaada ilaahay uu kaa xarimay oo dhan aad ka soonto taasaa markaa bisha rabadaan laga dhexlaa marka han isku soo ducayno han iscafino han isa saamaxno ummaddana si gaara han ugu ducayno caam ahaana muslimiinta han u wada ducayno gaaladana inta ilaahay hidaayadda uu qadarena allaha soo hadeeyo wixii islaamka dhibkula soo maqana dhibta gudahooga allaha ku celiyo dadkeenna af soomaaliga ku hadlana waddankii soomaaliyana ha loo duceeyo waddannadeennana ilaahay inuu dhibaatada iyo abaaraha inaga faydanana insha allah han u wada ducayno muslimiintu waa kaljasadi alwaaxid buu nebigu ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasadi biالsahri wاlxuma muslimiinta markuu nebigu sheegay muuminiinta say iskugu damqanayaan iskugu naxariisanayaan iskugu dhibrinayaan waa jidh keliyu nebigu ka soo qaaday inay yihiin jidhkaa keliya xubin haddii qofka xanuunaysa habeenka allah uma seexanayo boqcad adduunyada ka mida dad muslimiina ay ku nool yihiin ama abaari la soo daristay ama masiibo kale ay la soo daristay ama colaad dhexdooda ay ka taagan tahay waa in muslimiinta kale adduunka jooga maaragtaane ay u murugadaan oo u duceeyaan oo u nasteexeeyaan oo dacwadda iyo khayrka ummadda la gaarhsiiyo insha allahu tacaala ilaahayna haynagu wada anfaco anakuna runtii ma fiicnin laakiin meeshaan joognaa fiican meeshanaan joognaa maka ah waa meel barakaysan dadka isku yimidana waa dad waxaan rajaynaynaa inay dad khayr badan yihiin in ilaahay caza wajalla ducada culammadu habeen walba xaramkeenna uga ducaynayn ilahay noo aqbalaan rajaynaynaa waana isku soo wada ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi llah alxamdulilah hanaa lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allah alay wasalam dad badan oo eheladeenna oo walaalaheenna oo qaraabadeenna ayaa duco dalbanaya ilaahay waxaan ka baryaynaa qof walba halkuu ka kurbaysan yahay kurbada ilahay inuu ka qaaduu ka faydo ka bukana caafimaad ilaahay inuu siiyo ka guurdoonkana ilaahay gabdho wanaagsan oo diinle inuu siiyo gabdhahana wiilal wanaagsan oo akhlaaq iyo diin xambaarsan ilahay inuu ku arsaaqo dadka muslimiinta meeloo joogaana kurbadii cidhiidhiga ilaahay inuu ka faydo muwaafiqiya midnimana ilaahay inuu siiyo dadka ilaahay naarta uu ka xoreeyana allah inagu wada daro innaka iyo eheladeenna awlaaddeenna aqaaribteenna waalidadeenni waalidiintoodii wixii xuquuq iyo xurmo iyo xusuus ilaa nebi maxamed nebi aadan nagu leh ilaahay naarta ha ka xoreeyo firdowsa laclaana allah ina dejiyo kuwa bishaa loogu dembi dhaafay ee loogu naxariistay ee toobad keenee toobadda weliba laga aqbalana allah inagu daro sala allahu calaa sayyidina muxamed